حوانك شرفت لي حرقة كويد شاي كرسيات سوغيسي ربي ما سقيناي كرسيات سوغيسي ربي ما سقيناي أنا كوسيناي ربي حرقة garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ayaa maanta waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay musharax xildhibaan Siyaad Tabane Aadan oo ah musharax xildhibaan u taagan kursiga uu tirsigiisu yahay Hob 23 soo dhaweynta musharaxa ayaa waxaa ka soo qayb galay oday dhaqameed ururka haweenka dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah waxgaradkii odayaasha soo dhaweeyay musharaxa ayaa u rajeeyay guul waxa ayna sheegeen in ay garab taagan yihiin musharax soo dhawow waxaan nahay walaalihiina ee idinku sugayay muddada dheer qoraxda taagnaa saaka ilaa ay hadeer idinkuna sugayay garoonka Sayid Maxamed Cabdulle Xasan International Airport Kismaayo Tabane Aadan oo la hadlay Jubaland TV ayaa u mahadceliyay dadkii soo dhaweeyay asagoona sheegay in uu yahay musharax u taagan kursiga uu tirsigiisu yahay Hob 23 dhamaan walaalaha halkan waqtiga dheer nagu sugayay rag iyo dumarba waa idinka mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ah aad noo soo horteen waa farxadeena inaad waqtigiina aad noo hortaan waan idinka mahadcelinaynaa kun iyo kow jeer insha Allah raxmaan sidaad ka wada qabtaan waxaan nahay musharax waxa qaltaagayo kursiga ku astaameysan Hob fargees eber 23 insha Allah raxmaan waxaan wadognahay waxaan nahay qof ku dhax barbaaray xarooyinka qaxootiga Dadaab wadanka waxaan ka maqnaayay 31 sano anoo daayira halkan ka tagay maanta oo aan maartay damac siyaasadeed soo galnaa wadankii dib ugu soo noqday marka koowaad reer Jubaland oo ugu horeeyo madaxweynaheena qaaliga ah السيد أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي قالها وزيرة قالها شعبك دولة جبلان أن بولسي رأيت كدمان أو هري أن مشان كاركا دلنا يردي قالي جاها هواينكا يا سلادين توا مركا وحنك عصنا يا سلادين تيدا قالي جاه iyo wax garadka beeshayda kursigaas aan u tartamayo inaad ugu sharaftaan insha Allah raxmaan si bulshadeentaasna aan u anfaco gaar ahaan beesha aan u anfaco insha Allah raxmaan waxaan nahay aqoonyahan daayar ah hamile way araga in badan bulshada u soo shaqeeyay xafiisyo kala duwan soo qabtay waxaan rajaynayaa insha Allah raxmaan in kursigaas liigu maamuuso liigu sharfo anigana waxaan noqon doonaa insha Allah raxmaan qof xilkii sidii loo eegmaday oo soo baxo insha Allah raxmaan Leila Amar Abdullahi Jubaland TV